gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka madaxweynaha Puntland madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Jubbaland gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare madaxweynihii hore ra'iisul wasaarihii hore gudoomiyihii baarlamaanka hore golaha wasiirada xildhibaanada labada gole abtigay Talxa gudoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib sharaf weyn ay ii tahay maanta shirkan inaan ka soo qayb galo waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo maxadka heritage qabanqaabada shirkan qiimiga badan ee fursad noo siiya dad badan oo qaaliya inaan halkan kula kulanno leysweedaarsadana afkaar aad iyo aad u sarraysa sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani golihiisa wasiirada xildhibaanada dhammaan dadka reer Puntland sida wanaagsan oo ay noo soo dhaweeyeen iyo martigelinta ay martigeliyeen shirkan waxaana iloobaynin saaxiibkay Cabdiraxmaan Faroole madaxweynihii hore ee Puntland intaas kadib waxay ahayd fursad wanaagsan dadka Soomaaliyeedna u abuurtay yididiilo aad u weyn keentana inay isugu yimaadaan halkan muxaafid iyo mucaarid taasoo aan isleeyahay waxay hore u sii dhaqaaji doontaa caqabaadka iyo culeysyada iyo mashaakilaadka taagan oo looga hadlay qaar ka mid ah halkan oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka oo xilligan aad iyo aad muhiim u ah sidaas oo kale arrimaha dastuurka federaalka iyo amniga waxaan shaki ku jirin maxadku inuu soo xulay qodobo aad iyo aad muhiim u ah horu socodka qarannimadeenna waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago qodobadaas hadda aan soo dul maray arrimaha amniga haddii aan ka bilaabo waxaa la filaaya maanta dowladda Soomaaliya inay la wareegto mas'uuliyadda amniga iga raalli ahaada waxaan rabaa si furan si daahfuran inaan uga hadlo arrimaha aan sheegayo yididiilada ama higsigu wuxuu ahaay maanta dowladda Soomaaliya inay la wareegto amniga ama waxa u dhiman inay yar yihiin marka runta laga sheego arrintaas uma muuqato haddii aan aadno arrimaha federaaleynta ama federaalka waxaa ogtihiin meelaha la kala taagan yahay haddii aan ka hadalno arrimaha dastuurka isaguna waxaan u malaynayaa inuu taagan yahay 8 sano ka hor meesha uu joogay haddaa u gudubtid arrimaha bulshada dhaqaalaha ayaguna waa meeshoodii taas macnaheedu waxay tahay 4 sano la soo dhaafay wixii loo baahnay lama qabanin marka aan ka hadlayno arrimahan waxaan uga hadlaynaa si generaal ah waxaan uga hadlaynaa sida ay tahay cidna laguma dhibaayo cidna laguma soo dhaweynayo laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa dadka Soomaaliyeed ay filayeen inay gaaraan maanta inaan amniga wax iska bedelin oo dhaqaale wax iska bedelin oo dastuurku meeshiisa uu joogo oo federaalka oo meeshiisa taagan yahay arrin fiican ma aha
waxayna muujinaysaa inaanan waajibkeenni sidii ahayd aanan u gudan dabcan mas-uuliyadda cidaa loo dhiibay cidaa lagu ogaay cidaana lagula xisaabtamaa sidaas ay tahay annagoo dhan waxaan heli karnaa fursad aan hore ugu sii soconno oo aanan ku mashquulin waxa naga halaabay waxa naga halaysan fursaddaasuna waxay tahay inaan isugu geyno aragtideenna sidii aan u xalli lahayn mashaakilaadka jira oo ugu horeeyo ama ay ugu horeeyaan arrimaha doorashooyinka dalkan horena doorashooyina looga soo qabtay haddana waa lagama maarmaan in la qabto doorasho kastana waxaa la rabaa inay noqoto mid ka fiican tii ka horreysay haddaan laga wada tashanin oon laga hesheenin doorasho lagu qanacsan yahay ma dhici karto marka waxaa lagama maarmaan ah cidda mas-uuliyadda iska leh annagu waa ku ixtiraamaynaa laakiin murashaxiinna waa nahay mas-uuliyiin hore oo dalkaas soo hoggaamisana waa nahay xaq waxaan u leenahay doorasho xura oo xalaala oo lagu heshiiyey oo dalka nabad u horseeda oo ah mid keeni karta inuusan shaki gelin natiijada doorashada inaan dalbanno marka aan leenahay sidaas ujeeddadeennu waxa waa inuu dalkaanu wanaagsanaado institutionadu ay xoogaystaan dimuqraadiyadu dalka ay ka hilgasho laakiin ma doonayno dalkan in uu ku laabto hal qof taladiis laba qof saddex qof group inuu ku laabto ma rabno waxaan rabnaa inay ahaato talada dalka tala furan loo siman yahay qof walboo Soomaaliya guda iyo dibad jooga oo ka qayb qaadan kara taasa waxay keeni kartaa kalsooni dawladda Soomaaliya lagu qabo oo qof la arkay positionka uu ku aadan yahay oo ku qabto dalkan wixii dumiyay oo ahay inuu qof ra'yigiisa lagu socdo kuma sii socon karo sababtuna waxa waaye mashaakilaadka yaalla waa tiro badan yihiin waxayna ka soo horjeedaa nidaamka dimuqraadiga waxay ka soo horjeedaa nidaamka federaalka ee aan qaadanay taladu waa wadaag waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha dastuurka marka arrimaha dastuurka inay meeshooda joogaan waa calaamo aad iyo aad u xun waxayna muujinaysaa juhdigii loo baahnaa inaan la gelin maxaa yeelay dastuurku waa shayga asaasiga aan iskula joogno waa shayga dawladnimada asalka u ah haddii laga shaqay waayo oo la dhammaystiri waayo oo heshiisyada u baahnaa la geli waayo waxaan aadaynaa fawdona waa ka nimid ma doonayno sidaas darteed ayaa lagama maarmaan tahay in laga faa'iidaysto khubarada Soomaaliyeed kuwa ajnabiga ah imkaaniyaadka la heli karo loo sakhiro kulligooda dastuurku inuu ku dhamaado waqti kooban si dalkan waqti kale uusan uga dhumin oo 2025 loogu aado dastuur dhammaystiran oo afti dadka ay u qaadeen qof iyo cod si loo gaaro dastuurku waa inuu dhammaystirmaa arrimaha amniga xilliyadii la soo dhaafay waxaa la tababaraya ciidamo fara badan waxaa la keenaya qalab fara badan amnigana waxba iskama bedelin maxaa u sababa ciidamada dadka khubarada u aqaara fadhiya qaarna waa ay maqlaayaan waxaa jira sharci iyo nidaam ciidanka loo dhiso oo ay u dhismaan waxaan u maleynayaa sanadkii ugu horeeyay ee dawladdan la doortay waxaa la isugu tegay London waxaa lagu heshiiyay nidaamkii meel lagama soo qaadin ciidanna sidiisa waa inuu heshiis ku dhismaa taas waxaan rabaa in aad loo fahmo sababtuna waxa waaye waxaa lagu aaminay ilaalinta sharciga waxaa lagu aaminay inuu noqdo gacanta cadaaladda
وحلو آمن إنه دفاع دلك وحلو ديبا إمكانيات كدلك أولها أنت أقوم مهمسة أو يكمل تهاي نفط ويلش يقبلها عيدا كا وحلو بحيا خرج فضبنا إنه توبرتان قلب كودا وحبضا لو بحيا قفك ساحنا يا وحو كساحدا عيدا كي سقرن عيدا كاس marka waa inuu ahaada ciidan ku dhisan sharci dadko dhanna kalsooni ka heli kara shaqadiisa u guta si waafaqsan sharciga islaam markaasna bulshadu si dheelitiran ay ugu jirto arintaas waa muhiim arin annaga kaliya khaas nagu ama aha adduunko dhan ciidanka wuxuu leeyahay hab loo qoro ciidanka hal meelna laga ma qori karo meelna laga ma tagi karo waxa la rabaa si siman oo qorshaysan halkii unug inay ku wada jiraan dad ka yimid deegaanada oo dhan la rabaa saraakiishuna waa sidoo kale waxa xaraamka ciidanka in siyaasad loo adeegsado maxaa yeelay wuxuu ka baxayaa xadkii loogu tala galay wiilasha iyo gabdhaha hubka iyo qoryaha noosida ee ilaalinaya waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa noogu sharaf badan shaqada ugu dhibka badan haya gaar ahaan maanta oo kale oo la dagaalamayo argagixiso marka si ay kalsooni u helaan si ay xurmo u helaan si ay ixtiraamka u baahan yihiin nooga helaan waa in loo dhisaa hab hufan oo transparent ah waana inay helaan tababaradii ay u baahnaayeen iyo wax kasta oo aysan uga maarmaynin shaqadooda waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha dhaqaalaha dalkan waa dad qani ah dadka Soomaaliduna waa dad diyaar u ah inay shaqeystaan laakiin caqabadka hortaagan koo waxa ka amni daro qodobadan oo dhan afarta qodob waa isku xiran yihiin dastuurkii habka dawladnimada oo federaal ah amnigii iyo dhaqaalihii haddaan la helin amni dhaqaale horumar ma laga sameyn karo sidaas oo kale dawladdu waa inay la timaadaa hanaan lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka hanaankaas waa inuu noqdaa hanaan isu dheelitiran oo hufan oo aan lahayn mugdi maxaa yeelay dhaqaaluhu waa waxa la isku dilo resource-ka waxa la isku laayo oo conflict ka dhasho waay dal faqri ah oo imkaaniyaadkiisu kooban yihiin haddii dhaqaalaha yaroo soo gola koox yar ay qaadato ama ay u socoto inay koox qaadanayso dawladnimadu ma shaqaynayso مثالا ربعنا سوقات نيجيريا مدل غنيها مسوا دل فقيرة ودل غنية وحيابها أو غنية أو يهين لبض الشيء أو وين وحكم ذا ذهبك هي بترولك لكن هذا نيجيريا فقير واي لماذا habka dhaqaalaha loo jaangooyay ayaa khaldan macnaheedu waxa waaye dhaqaaluhu waa inuu ka fogaadaa gacan kooxeed waa inuu ka fogaadaa corruption dalkan haddii la rabo inuu horumaro waxa kaliya uu ku hormari karo waa inuu corruption ka fogaado meesha aan adduunka ka joogno maanta marka laga hadlayo corruption-ka bal fiiri waana waxaan ka bixi karno waana wax dawladnimada asaas u ah diin ahaan waa wax aad u xun dawladnimada waa wax aad u xun ummadda waa isku diraa marka waxa la rabaa in ay timaado aragti hufan oo dhaqaale مثلا hadda waxa la sheegaa shidaal la soo saara waa ogolnahay shidaalka in la soo saaro waana wax aad iyo aad u fiican laakiin shidaalka mugdi hadii lagu soo saaro muxuu keenayaa wuxuu keenayaa corruption wuxuu keenayaa dhibaato aan istaagin shidaal marka la soo saarayo waxa la rabaa koow in laga heshiiyo dhaqaalaha ka soo baxaya sida loo qaybinayo waxa la rabaa inay ka heshiiyaan maamul goboleedyadu sida iyo dawladda dhexe sida loo qaybinayo kadibna waxa la rabaa dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe dhaqaalaha percentage ahaan meesha uu ku baxayo inta aan soo marnay oo dhibaato ah maanta inaanan ka joogsanaynin wax keenaya dalka inuu burburo
oo dawladnimadu qalloocato oo dib loo laabto arrin la aqbali kara ma aha arrin la aqbali kara ma aha dalkaana sidiisa waxaa ku filan haddii si sax loo hagaajiyo beeraha iyo xoolaha iyo badda ku filan laakiin haddana waxaan ogolnahay wixii kaloo khayraada oo ku jira dalka in la soo saaro laakiin waa inaan mugdi lagu soo saarin oo lagu soo saaro wax cad oo la wada og yahay shilinkii soo gala waa inaan ognahay meeshuu ka soo galay iyo meeshuu ku baxay haddii dawladnimo laga hadlayo muhiimadda ugu weyn waxa waaye muxaafid iyo mucaarid inay jiraan waxyaabo aan isku waafaqsanna qof maanta ku doodi kara mugdi dhaqaalaha lagu soo saaro ama ciidanka kooxa kooban ha laga sameeyo ama heshiis la'aan dawlad ha la dhiso ama ha la doorto dawladnimo ha la aado ma jiro idan waxay ka mid tahay arrimaha aan isku waafaqsannahay waxyaabahaas oo kale heshiis cad inuu jiro oo annagoo dhan aan naqaano waxaan rabnaa si aan uga gudubno marxaladda adag waxa aan haysanno inaan naqaano sida aan u maamulanayno waxa ugu weynna waxa waaye dhaqaalaha taas waxay xiriir la leedahay nidaamka dawladnimada maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed maanta shaqo ma jirto ganacsi macna leh oo lagu talagalay ma jiro wax soo saar beereed ma jiraan xoolihii waa ogtiin sida ay yihiin waxay u baahan tahay marka istaraatiijiyo cad oo wajahaysa arrimaha dhaqaale darrada iyo arrimaha maamul xumada maamul xumadu wax maanta kaliya ma ah horena waa u soo jirtay arrimaha dhaqaalaha haddana waa jirtaa berri haddaan laga tashan oo go'aan laga gaarinna waa jiraysa waxaan rabaa inaan u gudbo nuqdo muhiim ah dawladnimada maanta aan dul taagannahay annaga nagama soo bilaaban dad kale ka soo bilaabat dadkaasuna waxay u garteen sida ugu wanaagsan inay tahay waxa la yiraahdo faslu sultaad maxay tahay baarlamaanku inuu shaqadiisa qabsanayo fulinta shaqadeeda ay qabsato garsoorka shaqadiisa uu qabsado habay isugu xiran yihiin oo ay wada shaqaynayaan inay jiraan ma jirtaa maanta jawaabta adika sugaya idan waxaan u baahannahay arrintaas inay noqoto waxyaabaha lagama maarmaanka ah oo aan u taagannahay dhammaanteen wiil iyo gabar qof gudaha jooga qof dibadda jooga maxaa yeelay qofka marka mas'uuliyad muxaddada la siiyo waxay u badan tahay inuu ka miro dhaliyo laakiin haddii qofna wax tiro badan dhabarka laga saaro qofna la yiraahdo waxba ha qabana iska fadhiiso shaqadii ma qabsoomayso waxaan rabnaa marka arrintaas inay meesha ka baxdo marka aan sidaas leenahay ma aha inaan qolo ka soo horjeedno waxaan rabnaa inaan uga hadalno dawladnimadu sida ay tahay ay noogu wada badiso oo ay noogu wada hagaagayso qofkii wax wanaajiya annagoo wax noo wanaajiyey laakiin maalintii aan sheegi weyno runta oo aan naqanno sacbiyayaal oo run iyo been aan ku sacbinno horumar ma samayn karno horaanna u soo aragnay waxaan rabaa inaan uga gudbo waxa ugu weyn oo la raba in xoog la saaro waa diyaarinta qofka Soomaaliga ah meesha wax ka bilaabmaan oo dawladnimada ay ka unkamayso waa diyaarinta qofka maxaa loola jeedaa maalinka uu dhasho ilaa maalinka xil loo dhiibay qofka in la diyaariyo bi'adii in la diyaariyo bi'adii munaasabka ah annaga hadda dadkeena waxa lagu diyaariyaa qabiil dhexdiis waxaa lagu diyaariyaa corruption dhexdiis waxaa lagu diyaariyaa qaarkood mataqaanaa iyagoo caraq qaba ama ciil qaba waxaan rabnaa inaan abuurno jawi wanaagsan oo Soomaalinimo leh oo qofka ku barbaaro uu yahay qof mas'uul oo noqon karo yaqaano waajibaadka saaran iyo xuquuqda uu leeyahay
taas ayaana waxay keenaysaa in la helo bulsho dhisan diyaarsan horumar samay karta bulshada waxa horumarka sameeyayna waa dadka lidaalika waxaan rabnaa inuu noqdo qofka Soomaaliga ah waxa ugu muhiimsan oo awoodda la saarayo marka aan sidaas leenahay oo dhaliilo aan jeedinayno uma jeedinayno kursi dartiis waxaan u jeedinaynaa dalkan waxa u baahan yahay badbaado sida aan ku socono hadaan wax ka bedelinna waxba isma bedelayaan haddii doonta dadka wada ee meel khaldan u wadaan oo gacmaha aan qabo weyno annagoo dhan waxay noqonaysaa badda inaan galno marka inaan isu nasiixayno isceshanno laysu sheego xaqiiqada laganaan caroonin meeshaan waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah qofku inuu aqbali karo ra'yigiisa ra'yi ka duwan ra'yiga dawladda ra'yi ka duwan in mucaaradku uu qabo macnaheedu ma aha inay dawlad duminayaan bilcagsi waxay dhisayaan dawladnimada maxaa yeelay annagoo dhan bani aadamaana nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam la dhaliilay saxaabadiisii iyo khulafaa raashidiin la dhaliilay umar oo khulafaa raashidiin kamid ahay ala yiri laguma dhageysanayo mimbarka ka daway ilaa aan nooga sheegto go'a garbaha ku saaran meesha ka keenta man nahnu idan yaa nahay annaga haddii nabi muxamed la dhaliilay oo saxaabadiisii la dhaliilay oo adduunka hadda joogo horuu maray oo dawladnimada looga daysanayo ogolin in la dhaliilo maxaan nahay annaga waa inaan aqbalnaa dhaliisha mucaarad iyo muxaafid waxaan rabaa inaan u gudbo arrin kale oo muhiima arrinta kale oo muhiimka waxa waa xurriyaadku waa waxa ugu muhiimsan oo marna aysan suuragal in laga tanaasulo dadkan Soomaaliyeed dhib iyo dhibaato waa ka soo daaleen cid kasto awood leh awoodooday dul saartay arrintaas xaqna ma ah dadku waa inay fikirkooda xor u ahaadaan ra'yigooda xor u ahaadaan qowlkooda xor u ahaadaan shaqadooda xor u ahaadaan waxayna kamid tahay waxyaabaha diinta islaamka loo soo dejiyay waxa ugu horeeya xurriyatul aqeeda waxa ugu horeeya xurriyatul aqeeda waxa ku xiga xurriyatul fikr waxa ku xiga xurriyatul ra'yi haddaan xurriyad la helin dawladnimo ma jirto dawladnimadan waa midaan wada leenahay waxaan rabnaa annagoo dhan horumarkeeda inaan ku faraxno xumaanteeda inayna dhibto taasna waxay ku imaahaysaa qofka Soomaaliga inuu dareemo sharaf iyo xurriyad inuu ku leeyahay dawladda haddaysan ixtiraamaynin dadka oo ra'yiga dadka ixtiraamaynin oo qofka Soomaaliga aysan ixtiraamaynin waxaa imaanaysa qofkuna inuusan danaynin dawladnimada taasna waxay ka saaraysaa meesha dawladnimadu qof ma aha marka la waa ku celinaa laba ma aha saddex ma aha 10 ma aha golaha wasiirada kaliya ma aha xildhibaanada kaliya ma aha waa annagoo dhan waa dalka oo dhan marka waxaan rabnaa in la abuuro jawi qof walba Soomaaliya guda iyo dibad meesha uu joogo oo gacan sii kara dawladda waxaan rabaa inaan u gudbo qodob kale oo muhiima muxuu yahay dadka Soomaaliyeed dagaaladii sokoye markay dhaceen ilaa hadda waxay ku sii socdeen dibadda in badan oo kamidana waxaa kaliftay ama amni la'aan ama duruuf dhaqaale oo dalka ka jirta inay ka cararaan dalka dadku inay u soo laabtaan oo khibraadkooda ay noo soo celiyaan waxay ku xiran tahay dawladdu siday u dhaqanto siday u diyaariso jawiga dalka taas waa ula jeednaa ama amni ama siyaasad ama bulsho ama dhaqaale dadka Soomaaliyeed ee khubarada ah waxa xaqiiqo ah inaan laga faa'iideysanin sida ugu fiicnaadna aan looga faa'iideysanin waxaan u baahanahay marka taasna in si gaar ah isha loogu haayo oo laga faa'iideysto
khibraadka maxaa yeelay dawlad waxa lagu maamulaa waa aqoon iyo khibrad qof walba ma aha meel kasta inuu qaban karo in loo diyaariyo dadka khubarada ah مثلا هذا waxaan ka hadlaynaa dastuur waay dastuurka dad ku takhasusay oo jaamacada uga baxay waa joogan maalin inta loo yeeray shaqadan qabta ma la yiri lama dhihin dhaqaalaha dad ku takhasusay arrimaha bulshada kuwa kale ku takhasusay lagama faa'iideysan waxaan rabnaa marka iyadana in laga faa'iideysto waxaan rabaa inaan ku dhawaado gabagabada ani hadda warkayga gadaala loo dhigay haddana waxaa la yidhi soo gaabiya waa iska soo gaabinaa laakiin waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo soddonkii sanoo la soo dhaafay waxaan ku jirnay tii laakiin waxyaabo aan xaqiijinaa jira waxa aan xaqiijinay waxa waaye dawlad federaal inaan leenahay oo nidaamkeeda uu qabyo noo yahay inaan gacmaha iskugu geyno oon waxa ka dhiman ka dhamaystirno oo muxaafid iyo mucaaridba gacmaha iskugu geynaan diyaaruna taas waxaan u yeelaynana waxa waaye dalkaanu inuu hore u socdo markii la hadlo qofkii wax qabtaa waa la dhaliilaa dhaliisha midna waa dhaliil meesha qabanaysa dhaliilna waa midaan qabanaynin meesha oo tabartu ay ka gaabinayso annaga waxa aan sheegayno waxyaabo dhaliil muuqata oo la xalli karay oo laga jeestay laakiin u baahan hadda inta lagu baraarugo la xalliyo maalan dastuurka oo kale muxuu u baahan yahay waana soo mariyey aniga waxaa laygu doortay cahdi ku meel gaara dastuurka 4 sano in ka yar yaa lagu dhammaystiray waxa laga sheegto laakiin 8 sano inaan weli faro ka qodnayn wax la aqbali kara ma arrimaha amniga wax yaraan dulmar raalli ahaada ciidamada iyo qalabka la keenay haddii si sax loo adeegsado la kaashado ciidamada nala jooga ee emisom waxaan aaminsanahay inay shabaab ka xoray karaan dalka waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo calaaqaadka arrimaha dibadda 4 sano oo la soo dhaafay dalkaanu wuxuu galay crisis arrimaha dibadda oo laga baaqsan karay ma rabno masaalixda dadka Soomaaliyeed inay ku milanto masaalix dalal kale oo ayaga laga yaabo inay xurguf u dhaxayso waxaan rabnaa in la ilaaliyo masaalixda dadka Soomaalida lagu ilaaliyo calaaqaadka arrimaha dibadda lana xoojiyo dadka Soomaaliyeed midnimadooda wixii shalay loo burburay waxay ahaayeen calaaqaadka arrimaha dibadda oo aan saxnayn iyo tilaabihii ku aadanaay oo ay ahayd in la qaado oo aan la qaadin mudanayaal iyo marbiyoyn waxaan rabnaa inuusan naqanin kulankeennu hadal kaliya ficil oo isu bedelo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh